wanaagsan waxaan idin rajaynayaa meel kastoo joogtaan inaad nabad qabtaan maanta live-kayga waxaan rabaa 5 daqiiqo oo aad iyo aad u muhiim ah inaan kusoo gudbiyo soo dhawaaw haddii ay ugu cusub tahay haddii aad tahay dadka ila joogana waxaan ku leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay soo noqoshadaada ma ka daalaya maanta oo dhan horta inaan sidaan wax u soo gudbiyo walaalaha igu taageeraya fiidiyoyadeyda fiirsanaya sii gudbinaya kulligiin aad u mahadsantihiin jazaakallahu khayr okay fiidiyoyada hadda marka waa kusii soconayaa waxaan rabaa halkan maanta inaan kusoo gudbiyo jooji isbarbardhiga iyo jooji isbarbardhiga ilmahaaga isbarbardhigaysid okay muhiim waxaa ah ilmahaaga horta inaad ogaatid inayna jeclayn saas in lagu sameeyo waalidiin badanaa jiro waxay yiraahdaan adiga walaalka ha kaa fiican adiga habreerta ha kaa fiican wiilkeeda adiga aftiga wiilkiisa kaa fiican ama gabadhaas oo hebel kaa fiican waxyaabahaas kalsoonida ilmaha aad iyo aad ay u dhigtaa hoos uma wanaagsana markii aad qof kale la barbar dhigto isaga marka qiimihiisa hoos u dhacaya iska soo qaad hadda adi hooyaa tahay ka waran haddii adi lagu dhaho hooyo hebelaa kaa fiican ama aabba tahay in lagu dhaho aabba hebelaa kaa fiican okay wax fiican ma ahan qofka niyadiisa waxar way jabee hadda adiga qof weynaaba tahabo adiga qof weynaa tahay niyadaas haddii ay kaa jabto xitaa maarkina waxaad dhihi kartaa aniga kalsoonidaada kugu filan laakiin ilmaha markuu yaryahay kalsoonida ma ku filno maskaxda ma ku filno maskaxda weli shaqaa ka socoto fakarka ma ku filno waxaas oo dhan ma ku filno so therefore muhiim waxaa ku ah inaad og tahay ilmahaaga inaadan marmar isbarbardhigin ilmahaaga inaad markii aragto inay dhiban yihiin aa caawiso ilmahaaga haddii aragto inay mataqaana u baahan yihiin maxaa la dhahaa inay u baahan yihiin in la salaaxo inaad salaaxdo haddii u baahan in hab la siina hab siiso isbarbardhiga dhig jooji laakiin haddii cunugaaga xitaa waxbarashada ku xun yahay qof kale hala barbardhigin haddii cunugaaga qof oona jeclayn mataqaanaa oo wax hebelkaaga sheego qof kale hala barbardhigin ilmahaaga wax walba uu jecel yahay ka caawi wax walba uuna jeclaynna ka caawi muhiim waxaa inuu fahmo yuu yahay isaga explore inuu sameeyo isaga xaguu u socdaa inaad tiraahdid mataqaanaa inaad ku mashquushid ma aha laakiin inaad ku mashquushid ma ahan sida asiga niyadiisa u jabin lahayd waa inaad ku mashquushid sidaa niyadiisa kor ugu qaadi lahayd waxaa ogaataa ilmaha markay yaryaryihiin already ilmo badana oo ayaga lafacahaa jiro already ilmo badan oo ayaga ay isleeyihiin uu kaa fiican yahaa jiro already kalsoonidooda kor ma jirto adiga iyo waalidka ahaayo wanaagsanayo oo loogu talagalo markiinu ilmahaas caawiyo ka waran haddii ugu sii darto hebelaa kaa fiican hebel ma gaartid hebel waa sidaan hebel waa sidaas wax fiican maahan okay isbedelka marka maanta sameeya soo jooji ilmaha aad dadka kale la barbardhigaysid sida ogtihiin maadaama aan live ku jiro wax walba hadday dhacaan taleefanka hadduu soo dhaco haddii laysoo waco waxaasoo dhan waxaa waaye wax oo hadda socda marka wax kama bedeli karno marka haddii adiga ilmahaaga tibkan haddeer si fiican u dhigayso haddii aad rabto inaad ku guulaysato haddii aad rabto inaad ku guulaysato ilmahaaga kalsoonidiisa inaad dhisto waxaa u baahan tahay kow inaad adi iska bilowdo qaladaadkaa joojinaysa inaad joojisid ilmahaaga uu korayaa marka qaabkaas uu koraayo adiga ha ka noqonin qaab oo mataqaana asiga wax u dhimaayo adi isbedel hadallada adi lagugu dhihi jiro ilmahaaga ha ku dhihin haddii adi lagu dili jiro ilmahaaga ha dilin haddii adi lagu caayi jiro ilmahaaga ha caayin ilmahaaga waxaas dhan uma ahan xaq uma lahan okay ilmahaaga xaq waxay u leeyihiin inay explore gareeyaan iyaga yeeyihiin iyaga maxay samayn karaan iyaga maxay awoodaan iyaga maxay mataqaanaa inay ayaga isbartaan adiga marka walaalaha xitaa ha isbarbardhigin walaalaha isla dhashay heblaaya kaa fiican hebel ha ku dhihin okay muhiimadda taas waaye way dhacdaa mararka qaar inaad isdhahdid allah saan muxuu u noqon waaye allah laakiin firi u duceey ilmaha u duceey ilaahay sidaan ha kaa dhigo ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay maskaxda ha kuu furo ilaahay maqalka ha kuu u ziyaadiyo ilaahay indhaha nuur ha kuu saaro maxaa diida inaan si fiican ilmaha aan ula hadalno wax diidaya ma lahan so wax walbo adiga ilmahaaga aa arkayso inuu ka naaqusan yahay ilaahay u bari inuu ilaahay u ziyaadiyo okay haddii uu yahay cunug aan hadalkaa maqlaynin sababaa jirto channelka gadaal ugu noqo waayo cunuga hadalka iga maqlaynin videoyo kalena waan soo samayn doonaa laakiin adila isbedelka sameeye even ilmahaaga hadduu kugu ooyo oo maaragta oo jidka dhulka isku tuuro adigu waa inaad noqotid qofkii kalam ahaa lahay
shaydaanka iska naar hawo qaado neefso alxamdulilah dheh waxaa waaye adi xitaa journey ku jirtaa like jida adi xitaa socotaa jidkan anaga dhana isla soconno laakiin qaabka aan jidka ku marayno yuu noqonin mid anaga ilmaha aan koobi garaynayno ilmaha inaan koobi garayno ma ahan 5 daqiiqana way dhamaatay meeshaan aan marku joojinaynaa aad iyo aad u mahadsantiin jazaakallahu khayr salaamu calaykum videoga sii gudbiya waa mahadsantiin